رسول الله إلا المصطفى هو نورنا وحياتنا وفؤادنا. ماكرون يا رمز الوقاحة والخنا، من أنت يا ولد الرذيلة والزنا؟ أتقول سب رسولنا حرية وجعلت من ترداده لك ديدنا؟ اخسأ رقيع فأنت أحقر من سرى فوق البسيطة أو تقلب في الدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسعدي حسن جنرال كان قد إنسان وأجمل جنرال كي ما توحى مرتكو ربعنا ورئيسك قاضو منشد كصومالي محمد فضل كسودو. هذه ما حسنتهاي وأنا دوحي. ما شاء الله. أصحابته أنت بدو ما عرفتين ويلك هو منشد نشيدوين قاضو معان عد معان كو قاضو ما شاء الله. waxaan rabaa inaan wareysi ka qaado nashiidooyinkiisa ku saabsan marka hore laakiin wareysigaas intaan la gaarin waxaan rabaa inuu iskeen baro aniga waa aqaana laakiin adinka inuu iskeen baro. maxamed kusoo dhawo magacaaga. magacayga horta waa maxamed fadli sidii baraha bulshada social media iyo yaqaanaan mostlyna waxaan sameeyaa waa nashiidooyinka oo khaas ahaan carabiga. ma sha Allah. maxamed horta marka hore barashadaada intaas ma ku eko waxaan rabnaa inaad noogu dartid meesha aad ku dhalatay aad ku dhaqantay dadku inay macnaha cilmi dheeraad ku yeeshaan. run ahaantii aniga nin oo Kenya ku kora ahay ku soo barbaaray ku dhashay ilaahay hadduu ku roon yahay waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo dugsiga saraba inta aan ku soo qaatay marka waa hawlahayga dhan waa Kenya. ma sha Allah. waa ku mahadsan tahay maxamed. social media goorma ku soo biirtay? run ahaantii horta qof kasta meel hoos uu ka soo bilaabay jirto oo jaani marka wadadan uu soo korayo ina barnaamijyada dadka Soomaaliyeed bulshada ah ka gadidna muddo ku qaadanaysaa wixii hadii si yihiin hadana Carabi waa in ay muddo badan ay ku qaadanaysaa. dhibaatooyin way jiraan iyo caqabadooyin badan laakiin mid ugu dareed maxaa isleeyahay xirfadii hadii aadan lahayn hadii aad u baahan tahay camera iyo editing iyo a lot of things hadda u baahan tahay hadii qofku uu garab istaagayo ma laha marka ugu horeyso dhibaatooyin soo arkaysa laakiin waa qayb nolosha kamid ah inaad u carootana ma aha nolosha wixii ku bado laakiin waa inaad aqbashid waay وانا كبحيسا مرحلة داس ساسانا ميسانا. اوكي ما شاء الله. adiga ka shakhsi ahaan yaa ka caawiyay yaa kugu dhaliyay marka hore fikradan ana social media inaad hibada Ilaahay ku siiyo ku soo bandhigto qof kugu caawisay ee kala talisamaya jirta mise adaa inta isku aragtay in Ilaahay hibo ku siiyay inaad dadka u soo bandhigto jeclaysatay? hadii su'aashaada jawaabteeda aan guda galo guriga markaan joogi jiray ayaa iska qaadi jiray marka iskaaga luqeyn jiray Carabiga marka xaafada iyo abaayooyin iyo walaalo support ka heli jiray weyn oo warniyahow codkaada waa ma sha Allah amal marka maalmaha kamid ayaa yar aan saaxiibanahay oo asagana wax qad qaado ayaa studio asoo u socdaan si raacay marka nashiid aan xifdisanaya jirto nashiidii markuu asaga duubtay oo loo sameeyay arkay aan dhahay warniyahow anigana midaa wataay bal haliga qabto sidii ayaan ay ugu suurta gashay in nashiideedii koowaad aan saas ku soo record gareeyo kadib codkii sida uu ku soo baxay maxay ahayd si aan caadi ahayn kadib uu igu dhahay warniyo adigaaba iga cod quruxsanaatayba meeshaas taas ay igu dhalisay marka inaan arko codkayga iyo ma sha Allah noqday wadadii aan si fiican u soo koray. okay ma sha Allah. wallahi waa arin cajiib ah. maxamed markii aan ka soo gudubno wareysiga social media nashiidooyinkaaga way kala duwan yihiin mid walba qiiro gooni iyo waxay leedahay munaasabad gooni ah marka adiga nashiidooyinka markaa sameynaysid oo aad ku luuqay intaadan ku luuqaynin ka hor waa inaad erayada sameysid bal qaab noocee ah baa u samaysaa erayada? erayada maxay ku xiran tahay dadka si isku dhex jiraan wadciga iyo xaaladda markaas lagu jiro wax ka hadlayo iyo
waxaan u badanahayna waa diiniga dhinaca diiniga oo ogaaga faa'iidaystaa cilmiga iyo khayrkaas bas leh haddii ay noqoto ammaan oo ma aha shakhsi laakiin maraakiz oo kale iyo goobaha adiga tayada leh iyo goobaha cilmiga iyo haddii intaadan barnaamijka qorin waa inaa haysatid waxaa ka hadli lahayd marka qoritaanka muxuu ku imaadaa un xaaladaas markaas lagu jiro wixii marka aad aragtid macnaha munaasabada aad u aragtid in wax laga sameyn karo marka kadib aad u fikirtaa erayadii kadib aad erayada soo sameysatid kuna luuqaysid dhinaca erayada way iskugu dhex jiraan qaar aniga sameysto iyo qaar lii sameeyo abwaanaa jiro inta sida ugu badanna waa lii sameeyaa inta ugu badan okay masha Allah marka aad qaadaysid nashiidooyinka ma waxaa ku dartaa aniga macnaha shakhsi ahaan waa ku aqaanaa laakiin dadka raba inay ku bartaan nashiidooyinkaaga ma waxaa raacsan wax muusig iyo waxa ah mise waxaad ugu luuqaysaa codka Ilaahay ku sii dhigaysa muusig ma laha nashiidooyinkayga waa un codka kaligiis laakiin cod kaligiis oo lagu luuqaynayo bas ma aha waa cod adiga meeshii muusigada ahayd wax ii buuxiyaa hele oo background in la habeeyo codkii sifuu codkii qaleel u noqon oo unasan u cidloon qofkan uu ku raaxaysan karo dhageysidiisa ma sha Allah nashiidooyinka nashiido kamid ah waxaa jirto aad u jecelahay aan xiiseeyo sax nashiidadaas waa nashiidadii aad nabiga ku amaanaysa sallallahu alayhi wasallam sax aadna u jecelahay ما شاء الله nashiidadaas waxay soo baxday waqti bulshada Soomaaliyeed ee aad ugu baahan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka fad badan loo geystay aad iyo aad marka nashiidada hadii aad dib noo xasuusiso aad iyo aad ma jeclaanahay nashiidadaasi horto maxay ku saabsan tahay ninka odayga ahaayo gaalkii weynaa u qaaday aan ku difaacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Macron Faransa waagii qalalaasa oo ka dhacay inuu ay diinteeni rasuulka inuu ku xadgudbay taas ayaa marka waqtigaas ayaa la sameeyay marka qoraalkaas gabaygaas kadibna aniga waan soo qaaday kalimaadka horta intaanan ku luuqeynin maxay oranayaan illa rasuulullaahi illa al-mustafa huwa nuuruna wa hayatuna wa fuaduna marka ayadoo aan ku luuqeynaa insha Allah إلا رسول الله إلا المصطفى هو نورنا وحياتنا وفؤادنا ماكرون يا رمز الوقاحة والخنا من أنت يا ولد الرذيلة والزنا أتقول سب رسولنا حرية وجعلت من ترداده لك ديدنا اخسأ رقيع فأنت أحقر من سرى فوق البسيطة أو تقلب في الدنا marka waa kalimaadka waa aad ugu raaxaysan nashiidadaas aad aan u jeclaa ma sha Allah waxaana erayadeeda kamida erayo aad u caragelinaya qalbiyada gaalada marka erayadaas sida u adag saa gaalada ama maxaa yiraahdaa aad ugu luuqaysay adigoo xabiibkaaga difaacaya xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam kuna bahdishay kuna caayday kaalkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kafka u geystay erayada nooca ah yaa ku alifay erayooyinka ninka ii sameeyay waa nin aad iyo aad ugu qaali ah Abdul Haliim la dhahaa waana chairmanka ama ninka ugu weyn oo hadda hayo munadamada al-ihsan ma sha Allah erayada waxa ku jiray waxaad ku tilmaamaysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam caadiisa inay xuriyad tahay wallahi aad nashiidada Soomaalida oo uga gadantay waana macnaha wax aad muhiim u ah oo fiican adiga luuqeyntaadana qorxisay saan maleynaa waa hadii erayada caadi loo qaado ma soo bixi lahayd marka ma sha Allah kulli waa lagu calaamad saari karaa mushidka Soomaaliyeed ugu weyn aad waa kaaga mahadcelinayaa in badan ما شاء الله وطمع سنتا وقتي هذا يجانس قاعد نسيسي مركلته كسودو بس وان دوهي أصحاب هذا مر لبعضنا وان سلامية إن شاء الله أنت مقالك تقاني أنت أنا أقانين بمحلية ملك استجوكتين برشون أحسن أوكي ما شاء الله عادي أنا والله وما سنتا وكانوا مهدعينينا والله مرة والبو جانس قاعد نسيسي أدين كانوا كم سنتين داوشة مقالك داوتين